facebooka lacag intee leeg ayaa ka samayn kartaa halka muuqaal aad soo geliso. dad fara badan ayaa isoo weydiiyay ama xiiseynayaba mowduucan facebooka inta lacag laga sameeyo. waxaan geyn doonaa shaashada kombiyuutarkayga, waxaana kula wadaagi doonaa muuqaalada aniga aan soo geliyo qaar kamid ah inta lacag ee aan ka sameeyay iyo inta qofood ee daawatay, inta qofood ee lacag gareysay aan kula wadaagi doonaa si aad u ogaatid inta lacag ee markaasi adiga ku dar iyo ka jar ama plus minus ama celcelis ahaan inta lacag laga sameyn karo. dad fara badan oo waxaa jira TikTok isticmaalo isla markaasina muuqaalo soo geliyo, muuqaaladaasna TikTok lacag aan ka sameynin, jeclaana lahaayeen in ay muuqaaladaas soo geliyaan Facebook si ay isla markaasi lacag ay ugu suubiyaan. Facebook dad fara badan waxay aaminsan yihiin ilaa iyo hadda in uu yahay sidii 2023 2022 2021 iyo 2020 hadda laga soo bilaabo 2024 2025 Facebook gabi ahaanba qaabkii lacag loogu sameyn jiray waa isbedelay. warka ay ku daalan shaashada kombiyuutarka ayaa idin geyn doonaa si aad u aragtaan muuqaalada aan soo geliyo lacagaha aan ka sameeyo. haddii aad nagu cusub tahay oo naga daawanaysid YouTube-ka, ha moogaanina subscribe noo saarto si aad ula socoto qeybaha kale ta muuqaalada kale aan soo geli doono oo aan ka sameyn doono Facebook-ka iyo YouTube-ka, TikTok-ka iyo meel walbo. furana gambalaalkaasi oo mataqaanaa qofka ugu horeeya ama dadka ugu horeeya aad kamid noqotid aysan waxba aysan ku dhaafin ama lagaaga sheekeen. hana moogaanin in aad share u dhahdo oo xaasid aadan noqonin dadka kale ee asxaabtaada xiiseenayo in ay mataqaanaa arkaan in Facebook lacag laga sameyn karo ama inta laga sameyn karo. okay, haddii aad naga daawanaysid Facebook-na ha moogaanina like noo saartid, in aad mataqaanaa follow na soo dhahdid, qaybta commentigana fikirkaaga nagula wadaagtid. na soo raac shaashada kombiyuutarka. meeshana u jeedid waa page-ka ay ku keedsan yihiin muuqaalada lacagta aan ka sameeyay oo dhan. qaybta hoose ma ka aragtid bular ayaa kaa geliyay si aad mataqaanaa aadan u arkin. ma aha micnaheeda in aad mataqaanaa wax isdaba marsiinayo oo wax been ay idiin soo gudbinayo. okay, muuqaalka ugu horeeyo iyo kan labaad iyo ka saddexaad ayaa idiin furayaa si aad u aragtaan farqiga u kala dhaxeeyo iyo inta qofood ee daawatay. okay, muuqaalkan sa u jeediin waxa uu sameeyay $39.81 ayuu sameeyay. okay, muuqaalkan caadi ahaan waxaa daawatay 486,000 oo qofood ayaa daawatay muuqaalkan. waxa uuna sameeyay sa u jeediin halkaas. muuqaalkan waxaa mataqaanaa la gareeyay ama laagis oo gaaray 14,000 ayuu gaaray. muuqaalkan waxaa comment gareysay 1.2k ayaa mataqaanaa, waxaa share gareysay 1.2 kale ayaa share gareysay. waxaa muuqaalkan save gareystay maxaa la dhahay 690 iyo maxaa la 3 qofood ayaa mataqaanaa mataqaanaa save gareysatay muuqaalkan. qaybta hoosena waa ka arki kartiin asoo mataqaanaa oo si caadi ah. intan waxaa ka arki kartaa da'dii daawatay iyo inta daawatay intay u kala baxeen. hadda muuqaalka labaad ayaan ku laabanaynaa asigan. muuqaalkan wuxuu ku jiraa saacado ayuu ku jiraa muuqaalkan asigane oo ma ahan muuqaal oo waqti hore la soo geliyay. sa u jeediin muuqaalkan asiga dhan markaa saacado loo bedelo waxaa daawatay ama maalin loo bedelo 61 maalin iyo 14 saacadood ayaa la daawaday. haddii muuqaalkan uu ku sii jiro ilaa iyo biritoole saacadan oo kaleeto wuxuu sameyn doonaa in ka badan $11.41 ka badan ayuu sameyn doonaa. waxaa laga yaabaa in uu sameeyo lacag ah $50 ama $60 inuu sameeyo laga yaabaa muuqaalkan. okay, muuqaalka saddexaad asigana mataqaanaa fureynaa. sa u jeediin muuqaalkan wuxuu ku jiraa ilaa iyo adiga 3 maalin 4 maalin adiga 3 maalin ugu badnaan 3 maalin ayuu ku jiraa. waxaa daawatay muuqaalkan 208,000 ayaa daawatay, macnaha 210,000 aan dhahno ayaa daawatay muuqaalkan. waxa uu sameeyay sa u jeedid $8 ayuu sameeyay. marka muuqaalada way kala duwan yihiin, micnaheeda ma ahan muuqaalka hadii wax dad badan ee daawadaan inuu lacag badan sameynayo. muuqaalkan kii ka horeeyay ee labaad in ka yar mataqaanaa 100,000 ayaa daawatay, $11 ayuu sameeyay. hadduu ilaa ibril la sii daawane wuxuu sameyn doonaa in ka badan maxaa la dhahaye $50 ayuu sameyn doonaa. kanna asigoo mataqaanaa 200,000 oo qofood daawatay ama 210,000 qofood daawatay ayuu wuxuu sameeyay hadda intaa ka aragtaan meeshan oo ah $8 ayuu sameeyay. muuqaalkan waxaa loof gareysay sa u jeediin meeshan 4.6 ayaa mataqaanaa loof saartay. waxaa mataqaanaa comment ka bixisay 656. waxaa mataqaanaa share gareystay 235. waxaana mataqaanaa save gareysatay 271.
marka haddii aad mataqaana muuqaalkan ka heshay oo aad leedahay dad fara badan oo asxaabtaada kamid ayuu caawin doonaa muuqaalkan u sii share garay qaybta hoose ee commentiga su'aashaas naga soo weydii waa kaaga soo jawaabi doonaa haddii aad leedahay mataqaana waxa mataqaana xogaa shakaaga jiraan sidoo kale naga soo weydii hana moogaanina sii share garay so like noo saartid qaybta commentiga horaan kugu sheegay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh